guurka badan. fal iyo ficil kasta oo ay ku dhaqaaqday bulshadaas aynu hadalhaynaa inteeda badan waxaa fasaxayay ujeedooyinka nolosha ka jiray. diidi mayno dhaliil iyo arrimo si fudud ama fiiro la'aan ah mararka qaarkood u dhacayay. waayo bini'aadamku ma laha kelmadda la yidhaahdo isku dhammo. bal aynu isku dayno in aynu helno sababaha keeni jiray guurka badan ee bulshadan aynu ka hadlayno. 2, 3 iyo 4 Ilaahay waa banneeyey. ha banneeyo ee shuruudo ayuu raaciyey. guurka badan waxaa keeni jiray in qofka dumar ahi dhali weydo waa haddii ay iyadu leedahay sababta madhalaysnimada oo ninka tiisu caddahay. in haweenaydu qabto cudur aan laga bogsan. in ay haweenaydu dhashay hablo sooc ah waayo ninku waxa uu u baahan yahay ciidan wiilal ah oo uu ka horgeeyo cadowgiisa bahalo iyo ina rag. marnaba xagga dumarka mashkiladii kama jirin. in xoolaha ninku gaar ahaan geelu tirada ka bato isaga oon haysan ciidan wiilal ah oo hanan kara waajibaadkaas. furiinku waxa uu ahaa dhaliil ay bulshadaasi ka caaganayd. rag iyo dumarba ka wax fura iyo kala furo labaduba guur dambe way ka caaganaan jireen. waxaa la odhan jiray waxa ay qabtaa wixii lagu soo furay isagana si la mid ah. sidaas darteed guurkani waxa uu iman jiray iyada oo laga taxadarayo dhaliilaha uu furiinku keensan karo lana tixgelinayo xoolihii uu gabadha hore ka bixiyey. dumaashu waxay ka iman jirtay labada dhinac mid ahaan. waxaa keeni jirtay ninka oo geeriyooda oo ay taasina sababto in haweenaydii ama haweenkii uu ka tegay la dumaalo. dumaasha waxaa lahaa ninka geeriyooda ninka ugu xiga ee ay suurtagal tahay in uu gabadha dumaalo. arrintani waxay maslaxad u ahayd in aan nin kale oo shisheeye ahi seexan gosha hooyada iyo ubadka uu ninkii xijaabtay ka tegey. sidoo kale ninka ubadka u dhowi waxa uu xeerinayaa maslaxadda ubadka uu walaalkii ama inadeerkii dhalay. sidaas ayuu u jiray dhaqanjidaynaya in cidda ninkii baxay u xigtaa ay afada laga xijaabtay dumaasho. dhegxumo ayay ahayd in ciddii dumaasha lahayd oo nool ay cid kale dhaxasho dumaasha qofta dumarka ah. haddii uu nin shishe gabadha dumaalo ubadka uu dhalaa xoolihii qoyska ayay wax ku yeelanayeen. taas oo macnaheedu yahay xoolaha ayaa xero shishe u guuraya. dhinaca kale haddii ninka afadu ka geeriyooto waxaa xeer ahayd in gabadha walaasheed inadeerteed ama kuwa la midka ah xigsiisan loo siiyo oo uu guursado. waxaa looga jeeday in xidhiidhkii labada qoys sidii u sii jiro maadaama ay ka dhexeeyaan ubadka iyo adduunku xooluhu.